ururka horumarinta bulshada ee Sidigmaal oo saaka badiba ay ka joogeen xubnaha ururkaasi ayaa deeq raashin kala duwan ah gaarsiiyay hooyo tabaalaysan oo haysata 3 caruur ah oo xanuunsanaya. hooyadan oo hore muuqaal ay u soo duubtay kaga codsatay ummadda islaamka ah inay la soo garab istaagaan gargaar. hooyadan oo degan duleedka xaafadda Qandahaar ee magaalada Burco ayaa waxa saaka booqday xubno ka socda ururka Sidigmaal, waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay gudoomiyaha ururka Sidigmaal Xasan Indha oo ka warbixiyay barnaamijkan taakulada ah ee ay wadaan ka urur ahaan. kullay maanta halkan waxa jooga xubnaha ururka horumarinta bulshada afka iyo dhaqanka suuban ee Sidigmaal. waxaan u nimid barnaamij taakula oo aan gaarsiinaynay qoysaska kala duwan ee magaalada Burco. qoyskani waa mid kamid ah dadyowga runtii aan u aragnay inay kamid yihiin kuwa ugu nugul ee mudan in la caawiyo ama wax la gaarsiiyo. waa qoys tan yara oo ka kooban 3 caruur ah oo xanuunsanaya, hooyadood iyo inan ay walaalayihiin. runtii qoysku inay dan yar yihiin waxa u raacda xaalad caafimaad oo caruurtu tusaale ahaan 3 ciyaalhiba way xanuunsanayaan, waliba waa baaralays ama waa caruur naafa isla markaana aan haysanin daryeel caafimaad oo ku filan kaasoo xaaladooda wax lagaga qabanayo. qof kasta oo qoyskan wax ku tari karaya ka urur ahaan waxaan codsanaynaa inuu soo caawiyo isla markaana uu gurmad insha Allah tacaala u fidiyo. dhanka kale waxa hadalka iskaga dambeeyay qaar kamid ah dhalinyaradii ka socotay ururkan kuna dheeraaday in laga warhayo dadka aan awoodin inay ku istaagaan cagahooda una baahan gargaarka Rabbi ka islaamnimo iyo ka walaalnimo. hooyo xaalad adag ku jirta oo haysata 3 caruur naafa ayaan soo gaarsiinay hadana ururka Sidigmaal. alxamdulillah maanta tanan caawinna waa mid aad noogu weynaatay bulshadana noo soo bandhignay inay iyaguna ku soo darsadaan wax inay caruurtaasi soo caawiyaan, walibana saaid waxa ugu sii xanuun badan adduunka caafimaadka adduunka lagu qaatay. caafimaad ma haystaan, hooyadu ma haysato daryeel nolol maalmeed ma hesho. waxa doonay in meel kasta ka soo caawiso caruura oo markaasi baaralays bay hooyadan haysataa. runtii cidno uma maqna eelna uma qodna. inta adduunka la joogo baana walaalo laysu yahay oo wax laystaraa, laystaageeraa, laystaabiya, laystaakuleeya. akhira haddii la tago waxba laysuma ah. marka qoyskan kolley xaaladiisa waad aragtaan. kolley bahda dhalinyarada ee ururka Sidigmaal oo iyagu bil kasta oo rabadaan barnaamijyadan yarta lagu caawin jiray qaban jiray baa saakana intan deeqdan soo gaarsiiyay. laakiin bulshooyinka kale Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan qoyskan waxa uu uga baahan yahay inay markaasi ay soo kaalmeeyaan. waxaan rajaynayaa insha Allah cid kasta muuqaalka daawata inay waxay ka raysay karaankeeda ay soo tarto reerka tabaalaysan. kulli sidaad wada arki doontaan insha Allah tacaala duruufaha nololeed ee ku gudaaman reerka waxa u raacsan caafimaad daro. kulli ka urur ahaan ka Sidigmaal ahaan halkan markii baaqaas uu soo gaaray codsigaasi waan ajiibnay insha Allah tacaala waan ka soo jawaabnay. cid kasta oo baaqaygu gaadhayo dhawaaqaygu ama muuqaalkaygu waxaan ka codsanaynaa inay qoyskan nala eegaan isla markaana wixii ay ku tari karayaan xaq dhaqaale, xaq caafimaad iyo xaq ducaba ay ku soo kaalmeeyaan. ummadda Ilaahay kulli inagu bilahay inagu eegayay waxa qurux badan oo inaynu isku naxariisano iska warhayno keena maanta waxaysta uu dib ugu noqdo keena baahan taana waxa u maleynaya inay maanta yaraatay. haddii naxariistu yaraatana Ilaahay naxariistiisa yaraataa. ummadda aan arkaysaan ee tabcaansan ee waxa dhibaatada ay haysataa arkaysaan wixii soo tari karaa inay wixii soo taraan, wixii soo caawin kara ummadda islaamka. waxaan ka codsanayaa inay wixii soo tari karaan soo taraan, dhaqaatiir mariyaan, wixii ay u baahan yihiin ba ila soo mariyaan. Yaasiin Dhagacade, 5 Somali TV, gudaha magaalada Burco.